social ka dhaheen maxaa dhacay oo aad u wada waday ayaga ayaa ku dhagay tigidkana waa kan go ibagi oo sidaan baby ii noqotay xaaladu marka dhan wari mana siin kartaa lambarka ayay dhaheen ogow hadaad ilmo geyso waa lagu weydiinaa lambarka cunug hadaa qasabto waa ceeboobe meeshaan ha soo fariisanin la yiri afka ayay ka fududahay runta ayaan ku abaarsiinaya insha Allah la yiri afka ayay ka fududahay laakiin runta inaan ku sheegay waa la muhuraan waan siiyay arbaca ayaa la wacay waxa la hadlay Salman waxa la hadlay Salim waxa la hadlay Suraya waxa la hadlay Siham oo si qurux badan ayay iskula hadleen waxayna ku faraxsanaayeen nolosha ay galeen ma sha Allah maya oo ayadana awgeena la joognaa ayaa maqnaanina waa iimaanayna sidaas ayay iskuulkiina iskuul waabna la geeyay reedan ayay dhaheen waayo waa run cunug iska fadhinaya aniga ma jecli mana rabo fursada ay ilmahayga heleen wallahi aniga ma helin aniga kula hadlaaya gabaray ma helin wiilow ma helin marka alxamdulillah Allah u deesto abood ayaa fursad qaaliya oo qiimo la galiyay aniga ma helin laakiin I am sorry marka saas ayay tahay hadii aad ilmo geyso hala ordin hadii iska wadaado barbalan ku haystay xatii adoon barbalan ku haysan ayaa lagu leeyahay waa dhageysanayna codkooda maadaama caruur roon ay yihiin ay cunuga 5 jir markuu ka yaray ayaa la wareysanin 10 jir waa la wareysanaa ma ku qanacsantaa meesha lagu geeyo masa oo ku soo doona halow maaha adiga waa dhashay waa lagu la dhalay sister saas u faham okay sidii ayaa la ii nabad galiyay sidii ayaa ayaga ku kala faatixaysanay ma baana isla hadlin bas alxamdulillah shukri rabbil alamin dabadeedna halkaas ayaan ku kala shareecanay aniga iyo ayagaba markaan ku kala shareecanay ayay waxay subiyaan ma sha Allah hadda markay yimaadeen ayaa qadartaan timid sheekada gudniinka ah walaashaydii wanaag ayaa qofka lala jeclaadaa xumaatadu qurux ma keento waxay keenaysaa nabar aad qofka walaalkaaga u geysato ayay noqonaysaa aniga intaan ilmo soo gudo aniga iyo xaajiga nalama daayeen ko aniga intaan aan maxay ahayto caruur soo gudo la igama magaciisiyoodeen xabsi ayaan gali lahaa waana 12 sano hadii aad ogeyn hadda ka forjignaaw Faadimo waxaas waa ka fariidsantahay oo waa ka baxsantahay bararaqda ay wado eedo labiso eedo cilaan ismari eedo kreen iyo korkaada ku mashquul insha Allah Faadimo buraanbura laga qaatay saasa liiri maya eedo kuma suurta galayso dib u fiiri gurigaada tani waxa ku timi qadar marka I am sorry ayaan ku leeyahay anigu wax kasta oo adiga sheegto iyo wax kasta oo adiga jeceshahay oo xumaata ma u qalmi mana qaadan doono mana ihi qofkaas laakiin waxaan ahay qof ku qanacsan qadarta eebo oo mar walba leh ha alxamdulillah Allahu akbar alxamdulillah eraygaas hadii qofkaada ilaahay la doonto waa wax qurux badan waana wax adiga ku nuurinaya jismigaada iyo noloshaada iyo mustaqbalkaada dhisaya hadii Allah uu jidkaas kula doonto la iskama doonto marka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbi ilaahow inta wanaagsan naga wada dhig inta xunna ilaahow ayaga dhan wanaag ugu bedel okay caruurtu waxay marayaan saacada ay fiirinayaan insha Allah 30 daqiiqo ma iniga dhiga ha ilaa 20 hadda mareeyay ma sha Allah marka caruurtu waxay marayaan itixaam iyaga laftirkooda oo qaarkiin ayaa ku amakaagay caruurtayda oo ooyayo oo YouTube-yada soo galay oo xaalada lagu wada ka sheekeynayo oo aniga in la yiri hooyadiin wadanka ma joogto ama hooyadiin markii nigala soo watay bal fiiri daamishka caruurta la gaarsiiyay Soomaaliya si fiican misadkan u fiiri ilmahaygana fiiri gabar ayaa soo galiso oo ku fasirta aadan Swedish aqoon waxay dhaheen hooyada daamish ayaa gaaray way waalatay aabahana ma inhayn karo wuu indiiday kalmadaas ayay caruurta ku yiraahdeen aniguna ma ogeyn ilaahay waa xaq sooro 2 bilood markii la haystay cunugeyga meelba uu ka soo oo teleefonadeena email kasta la waayay oo teleefonka laga qaatay ayuu YouTube-ka danka uu ka doontay YouTube-ka aniga inaan ku jiro oo ogaa asna uu ku jiray
halkaas ayuu iga arkay markuu iga arkay ayuu qaracmo yiri sootan hooyaday caafimaad qabto oo halkan kale ilmahaygii baa la qaatay oo hooyaday ay kurbaysan tahay ilaahay kurbada ha ka feedo ayaga dhan Allah caawiyo wiilkayga Salmaan aad ayaan u jeclaa markaste qalbigayga ma ka bixiyo markaste wanaag iyo sumcad iyo sharaf inuu yahay aan dareensanahay waana wiilkayga adduunka aanu jecelahay subhanallah ilmaha ma kala jeclid ayaga iska kala jeclaysiyo hooyo oo yiri inta soo bilood aniga noloshayda ayaa waxay noqotay mid yani aan ku afragaago hurdaxti waa ayuu dhaa maalinta YouTube ka arkay waa ooyay marqaatiyaan YouTube ka hooyo waa Salmaan oo isoo qoray aniga isma dhigan bustana ma hoos galin inta ila rabeena waa suubin waay laakiin duca waalid iyo duca muslimiin iyo duca dadkayga Soomaaliyeed aan ka helay ayaa garbaha iga istaagtay marka waa liici waay mana laga yaabo hadda oo bogsado inaan liico alxamdulillah libintan maalin ayaan haleeli doonaa maalin ayaan heli doonaa maalin ayay arrintaani furfurmi doontaa maalin ayay dadkani waxay baarayaan xogta run iyo been ay soo ogaan doonaan insha Allah laakiin waa maalinta Allahu ya'lam Allah ayaa og maanta aha lama ogo bari aha lama ogo okay raja ayaan qabnay oo noo soo dhacday oo ah in ilmaha iyo anaga wada waraysi nolo bilaabi doono laakiinse waraysigii waxa la yiri waxa bilowday corona man la wada kulmi karo ma wada yeelan karno kulan ayay dhaheen anigoo ku faraxsan inaan xatii telefoonka arka ku yaryara kuwa weyn waa dad waaweyn oo xasuusan karo oo xiskooda haysto oo aan weligood ilaabeen laakiin kuuso iyo suldaanka anigoo isdhahay aad aragtid ayay dhaheen sorry saas ayaa jirto insha Allah ducada ayaa adinka ayaa inaga sugaya carabkiina Allah ii qaado rabbiga subhanahu qaadirka sidaan u samraay oo samirka aan u dugaashanayo inuu ilaahay igu qadinin ayaan rabbiga subhanahu qaadirka weydiisanayna anaka dhan okay marka waa ka saacawa halkaas ayaa insha Allah barnaamijka aan ka daadihin doona aad igala soconaysaan waana iga arkaysaan hadii ilaahay raali ka dhigo maxaana iniga tagaya ha dhageysanin beenta waxaad dhageysataa hadalka xigmada qofka nabarka gaaray xugmi afkiisa ka xugmi ha noqonin marqaati beena adiga ha noqonin mid dawarisa xumaatada ha noqonin mid qofka muslimka ku dheesho qof dhiban adigu hala dhicin dubaha anigu ilma ma soo gudin ilmana layguma haysan mana laga yaa wadankaana cadeen ayaa jirta cadeen ayaan haystaa sister sirmin ma u ihi ready in aan qof aniga way igu dhacday laakiin walaalahay Soomaaliyeed ayaan u soo galay socialka iyo caruurtayda ana iga arkaan social media waxaan u soo galay walaalahay Soomaaliyeed iyo caruurtayda marka ilmahaygana ma uusan dilin aabood waa inaga ilaabay saddex aabar mayna kala ahayn qabiilka la igu sheegana ma ihi anigu waxaan ahay Soomaali waxaan ahay ayaan ahay hayga sugin in aan ku ira reer hebel ayaan ahay waayo macna weyn kuma fadhiyo hadii reer hebel aan ahay ya dad reer hebel igu saarisay don't worry kullayba waxaan ahay qaxooti aan qubad lahayn aan safaaradna lahayn adduunka meel aan ka qiimeysanaana ma jirto runta hadaan ku sheeg ee waxaad ku dhagtaa tawxiidka iyo toobada rabbiga taqwada ilaahay bas ku dhag wax kale halkan adoo joog kuma anfacay kuba dhiban oo walaalahayna waxaan leeyahay dhibka Allah inaga dulqaado inta xanuunsan xanuunka Allah ka dulqaado inta jirada Allah ka dulqaado inta walwalsana walwalka Allah ka dulqaado inta ila soo xiriirtay waa inii duceynaya aniga taan arkay ilaahay inma tuso markasta ayaan dhahaa mid aan la daris ahay rabbigay kuma tuso ilaahay baan kaaga baryayaa mugdi inuu ilaahay ku fariisin ilaahay waxaan kaaga baryayaa farxadda ee ilmaha hadalkooda inaad waayin ilaahay waxaan kaaga baryayaa in aad adkaysato rabbiga inuu samir ku siiyo samir iimaankaadana xaji ilaahay bari kow walaalay ka carar qof Soomaaliya haduu inuu ku dhaawaco naaheede ilma lama qaato saas waa social waxaas ma suubiyan ha dhageysanin sharciga iyo qofka ku doodayo iyo lawyerka iyo maxkamadda iyo socialka bas wada shaqeynayaan naga dhaxayso naagtan waa beenteed waxa ma taqaano sharci ma taqaano
afkeeda waxay soo qabto oo aqligeeda uurkeeda mariidka oo ilaahay ay uga furatay ayay rabtaa inay kugu dulayso bustahay rabtaa inay ku jiifiso sariirtay rabtaa inay kula dariso waxay rabtaa inaad isilowdo waxay rabtaa inaadan labisan waxay rabtaa inaad leedleedo waxay rabtaa inay guriga kaa xirato inay kuu yeeshay rabtaa inay tiraa tan waalan ilmaheediyaa laga qaatay inay ku dhahday rabtaa berri adi laakiinse ha suubinin maya ha suubinin ilaahay bes isku xir waxaana kugu duceynayaa in aad samir qaadato nabiyada sida loo itixaamay samirkooda ayaan kugu duceynayaa nabi maxamed salaatu alayhi hadii aad tahay ummadiisa qaada samir salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adduuniya aakhira allahna dhaqo